السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله waxaan soo soo noqonnay casharadii Facebooka barashada ka faa'iideysiga Facebook sida loo isticmaalo page hore waxaan ku soo qaadanay markii hore page-ka ugu horeysa marka aad la login ku suubisid page-kaaga ama landing page-ka la yiraahdo sida uu shaqeeyo markan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa casharkan news feed-ka waxa la yiraahdo oo dhinaca bidixda markaad fiirisid news feed-ka ama si isaga naftirkiisu waa waxyaalaha ku soo qormo mar alla marka aad page-kaaga aad login ku suubisid qaybta ugu horeysa iyo sida uu shaqeyso barnaamijka waxaa idin suubisay barnaamijka shirkadda Tawakkal Money Express oo uga faa'iideynaysa ummadda macaamiisheeda iyo kuwa mustaqbalka macaamiisha u noqonayaba inay ka faa'iideystaan dhinaca Facebook iyo siyaaraha loo isticmaalo ina lahana qaadaan dhinaca technology-ga mar kale fiiri barnaamijkayaga etawakkal.com oo ah barnaamij cusub oo casriyeysan www.etawakkal.com haddaan casharkana dib ugu soo noqono news feedka macnaheedu waxa weeye dadka amase maaragtay xisaabtaada ah waxyaalaha ay qoraan markasta waxa ugu dambeeyay ama waxa ugu xiiso badan ayaad ku arkaysaa markaas meesha dhowr nooc ayay u shaqeysaa marka waa application qayb aad iyo aad muhiim u ah weeye qofku inuu fahmo sida u shaqeyso marka ugu horeysa hadaan soo qaadano hadda Tawakkal page-keeda waxaa ku jira Muuse Cabdullaahi Guure ayaa ku jira Muuse waxa uu qoray barnaamijkaas SNM la yiraahdo ayuu qoray laakiinse waa barnaamij oo isaga kaliya uu qoray weeye markaas Facebook marka waxay leedahay algorithm ama xisaab aad iyo aad cajiib u ah taas oo marka iyaga ayaa garanaya waxay isleeyihiin qofkan wuxuu xiiseynaya ayay kugu soo horumarinayaan haddii laakiin adiga maadaama page-ka adiga aad leedahay ama Facebook-gaaga uu yahay aad doonaysid qayb gooni ah inaad daawatid oo kaliya waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay sort waa kili garaynaysaa markaa kili garaysid waad dooran kartaa haddii aad doonaysid marka muuse in wixii aad ka hesho wixii important oo kaliya in lagu soo sheego waa ka ogaan kartaa haddii update-ka uu suubiyo oo dhan in lagu soo qoro muuse waxa uu update suubiyo dhan ama haddii uu wax ka bedelo waad dalban kartaa haddaad doonaysid in mawduucan uu ka hadlayo muuse adigoo markaas aan saaxiibtinimadii goynaynin laakiin mawduucaas aadan interest ku ahayn waxaad oran kartaa as unsubscribe from muuse haddii aad doonaysid muuse inaad sawiradiisa aadan helin oo kale waad dalban kartaa iyadana tusaale haddaan iraahdo oo kale only important wixii ah oo kaliya ayaan doonaya inaan ogaado markaas importantiga oo kaliya ayaa kusoo noqonaya next haddii aad doonaysid inaad qarisid sheekadan ama ay tahay wax aadan xiiseynin amase ay tahay wax xun oo fool xun oo dhaqanka iyo diintaba ka baxsan waxaad taaban kartaa hide story oo ka bixaysa markaa booskaaga isla markiiba way kaa bixaysaa kuma soo noqonayso haddii aad rabtid inaad Facebook u sheegtid marka waxyaalaha ugu dambeeyay in oo markaas ay Facebook xisaabteeda markay soo saarto ugu xisaab badan inaad ogaatid halkaas baad taabanaysaa most recent marka wixii ugu dambeeyay oo markaa la qoro ayaa ku soo baxay hadda wixii ugu dambeeyay oo markaa la qoro waxay ahayd Lucky Cadde ayaa barnaamijkaas soo qoray laakiinse waxa kaloo muhiim ah inaad ogaatid in haddii marka taabatid mar kale qaybtan waa iyadana qaybihii ugu dambeeyay waa iyadana hadaad fiirisid waxaad moodaa dadkii ka qayb galay shirarkii Istanbul ka socday inay yihiin haddii halkaas aad taabatid haddii ay newskaas meesha kusoo qoro uu yahay mid foolxun ama story aad u xun spam la yiraahdo halkaas baa ka taaban karaysaa haddii aad doonaysid Blackberry ayaa markaas laga soo qoray barnaamijka Blackberry oo dhan haddaad doonaysid inaad iska xirtid waad iska xiri kartaa markaas wixii oo ku saabsan barnaamijkaas oo dhan uu ka baxaya tusaale haddii mar kale aan ugu soo noqono waataan dooranay most recent hadda halkaas waxa ku qoran waa most recent waa kii ugu dambeeyay wixii ugu dambeeyay oo xisaabtaada ay qoran ayaa halkaas kusoo qormaya intana waxaa ka qornaysaa qofkan qoray Lucky Cadde oo qoray oo kaliya wixii ugu dambeeyay oo update-ku suubiyo waay haddii update-kiisa dhan aad doonaysid inaad ogaatid update-kiisa dhan baad taabanaysaa mar walba wixii uu suubiyo Lucky Cadde meesha kusoo qoran haddii laakiin aad isleedahay Lucky Cadde important wixii u ah oo kaliya oo suubiyo igu soo qor halkaas ku qoraysaa haddii aad doonaysid unsubscribe-na halkaas ba ku qoran macnaheedu waxay tahay haddii aad doonaysid waxyaalaha uu qoro inaadan xiiseynaynin laakiin saaxiibtinimadiinii ee meeshiinii soo socoto halkaas baad taabanaysaa iyadana oo waxaad leedahay waxay haddii laakiin aad doonaysid iyadoo saaxiibtinimada mar kale aad ku sii daynaysid oo aad doonaysid inaad haysid laakiinse aadan doonaynin waxyaalaha update-kiisana halkaas baad taabanaysaa markaas update-ka haddaadan xiiso lahayn waxa uu qoray oo dhan aysan macno kuu suubinayn waxa taa iyadana waafaqsan oo iyadana markaas la xiriirta oo muhiim qofku inuu ogaado haddii aan ku soo noqono mar kale top story-ga oo kale waxyaalaha ugu xiisaha badan ee Facebook leedahay waa xiiso badan tahay waxaanay tahay haddii aan fiirino haddaba marka barnaamijkan hadda uu qoray Cabdijuuji af Soomaali waxa uu qoray waxa weeye wuxuu ku qoray waxa weeye qofkan ayuu wax ka qoray marka haddii aad doonaysid inaad ogaatid waxyaalahaasito
storygaas oo dhan halkaas baa aad taabanaysaa waxaad ogaanaysaa marka inuu qof kale uu wax ka suubiyey ama wax ka qoray mawduuciisa haddii aad isleedahay storygan iska qarina waad qarinaysaa mar kale sidoo kale kasoo qaad hadda haddaan doonayo marka in waxa kaloo aad fursad aad leedahay marka in hadda fiiri Abuukar Saani oo kale haddaan doonayo in aan tago timelinkiisa haddaan tago kale masawirkiisaan taabanaya wuxuu ila aadayaa marka meeshiisuu ila tegayaa systemka wuxuu ila aadayaa meesha saaxiibtinimadiisii oo pagkiisii ayuu ila aadayaa si aan u ogaado marka isaga wuxuu yahay iyo isaga waxa uu qoray oo dhan haddii aan doonayo marka in aan fiiriyo saaxiibadiisa oo kale halkaas baan aadaya ama suggest friendska marka dib aan ugu noqono facebookeni iyo maaragtay news feedkii waxyaalaha laga faa'iideysto marka news feedka saas ayaa looga faa'iideystaa markasta waxaa muhiim inaad fiirisid sorts wax adiga aad samayn kartid maaha waxaa kuu furan oo keliya laba option top story iyo most recent haddaad rabtid wixii ugu dambeeyay inaad ogaatid most recent aad taabanaysaa oo ay axsaabtaada qoreen ama ise ay ka hadleen haddii aad doonaysid oo maaragtay top storyga wixii markaas ta Facebook ay isleedahay waa wararka ugu fiican weeye ayaga ayaa sameynaya oo xisaab ayaga yaqaan si u suubinayaan laakiin haddii aad doonaysid qofkan oo keliya Abuukar Saani oo keliya haddaad doonaysid halkaas baad taabanaysaa Abuukar barnaamijyadiisa iyo sida aad ula soconaysid halkaas baa markaas ka dooranaysaa haddaad doonaysid Abuukar in wixiisa updatekiisa oo dhan aad ogaatid ama se important wixii oo keliya inaad ogaatid halkaas ka dalbanaysaa haddii aad Abuukar unsubscribe aadan rabin waxa uu qoro dhan inaad ogaatid laakiinse aad maaragtay saaxiibtinimadiina meesheedii ay joogto halkaas baad ogaanaysaa markaas haddii aad markaas aad qarinaysid Twitter haddii uu kasoo qoray waxaad moodaa Abuukar inuu Twitter kasoo qoray sababtoo ah calaamadda Twitter baa halkaa ka qoran wixii Twitter uu ku qoro dhanbo haddaadan doonaynin halkaas baad iyadana taabanaysaa marka waxaan halkaas kaga bixinaa maanta barnaamijkii barashada Facebooka qaybta news feedka oo ah qaybtan halkan bidixda ku qoran tahay haddii aan soo gabagabayno barnaamijkan waxaa idiin diyaariyey Tawakkal Money Express mar kale waxaan idin leenahay macaamiisheeda iyo mustaqbalka macaamiisheeda dhalinta yar ee maaragtay ku xiran dhinaca teknolojiyada waxaan idin leenahay ka faa'iideysta dhinaca teknolojiyada oo sida wanaagsanna uga faa'iideysta oo waxyaalaha xunxunna ka dheeraada Tawakkal Money Express iyo barnaamijkeeda Tawakkal oo ah barnaamij casriyaysan oo hadda loogu talagalay inay ku soo ordhaan mar kale taabo Tawakkal Tawakkal www.etawakkal.com aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu